saaxiibka wanaagsan iyo afkaarta culimada islaamka. Cumar bin Khadaab Allah ka raali noqdee waxa uu ku tilmaamay saaxiibka wanaagsan sidaan: ma jirto islaamnimada kadib wax ka khayr badan saaxiibka ama walaalka wanaagsan. Haddii qof idin ka mid ah uu helo saaxiib ama walaal si dhab ah u jecel, ha ku dadaalo inuu ku dheganaado weligiis. Imaamu Shaafici Allah u naxariistay waxa uu leeyahay sidaan: haddii aad leedahay saaxiib kugu baraarujiyo adeecada Rabbigaaga, ku adkayso gacmahaaga, maxaa yeelay inaad kasbato saaxiib kuu horseedi kara wanaagga waa mid naadir ah, ayna adag tahay inaad ku hesho si fudud. Xasanul Basri Allah u naxariistay waxa uu ka yidhi saaxiibka wanaagsani wuu nooga jecel badan yahay ehelkeenna iyo carruurteenna, maxaa yeelay ehelkeennu waxay xasuusinayaan raaxada yar ee adduunka korkiisa ahaatay, halka saaxiibka wanaagsan uuna xasuusinayo aakhiradeenna iyo waxaan la kulmi doonno. Luqmaan al-Xakiim waxa uu yidhi isagoo la hadlaya wiilkiisa: wiilkaygiiyow, ha noqdo shayga ugu horreeya ee ay kasbato iimaanka dabadiis saaxiibka wanaagsan, sababtoo ah saaxiibka wanaagsani waxa uu la mid yahay geedka oo kale. Haddii aad hoostiisa fadhiisato, waxa uu kaa qarinayaa qorraxda kulaylkeeda. Haddii aad u baahato mirihiisana, waa quudan karaysaa. Haddii uu ku anfici waayana, kuma dhibaataynayo.